بسم الله الرحمن الرحيم. شنطي جولاي لما تكون قوية لبعضهم مركلة وحجونا وكان بارس البيرسي أكيد عيدك البوليس الصومالية ورأي وحنا قلنا قاضي إلى مجال السعودية أو ذلك لدجال كبو عبد وبيسم ذلك نعم ولي وحصل على ذلك لدجال كبو عبد وبيسم ذلك دعي سيال كان ما أنتم وحنا بتقولوا ذلك دونا أو ذلك عيدك البوليس كويسمايين ساعديه يمامه اللي صار في كوساب سنة برينت أو ذلك لدجال كبو عبد وبيسم sidaas in leeg waxa kale oo la wadaagi doonaa kiiskii wiilkii yaraa Muscab jirdilka oo adeerkii u geystay degmada Daynil taariikhdu markay ahayd 4tii bishii July 2021 waxaa la soo qabtay 3 nin oo burcad ah oo ku eedeysan burcadnimo kuwaas oo fal burcad hubaysan ka fulinaya degmada Kaaraan burcadaas saddexda ah ama dadkaas ku eedeysan burcadnimada ee saddexda ah waxaa lagu soo qabtay degmada Kaaraan iyagoo dhacaya moobeelo iyo dahab isla markaana fragrant offices gacanta kula jira ama fragrance delegate oo markii gacanta kula jira falka iyagoo sameynaya gacanta lagu soo dhigo oo kal ciidanku ay sameeyeen sidaas in la eg maanta 5 bishii July 2022 saas oo kaleeto waxaa la soo qabtay hal eedeysane oo isagana basoorad nooca la yiraahdo Belgium oo caag ah dadku dhacaya degmada Cabdicasiis ee gobolka Banaadir taas oo cadeynaysa in burcadu ay isticmaalaan xeelado iyo tabakkul duwan si ay dadku u dhacaan dhanka kale degmada Daynil degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir iyadana waxaa lagu soo qabtay hal eedeysane oo isna ku eedeysan inuu dhacayay dad muwaadiniin shacab ah inuu soo dhacay muwaadiniin shacab ah oo ummadda Soomaaliyeed ka mid ah dabagal iyo raacdayn ciidanku ay ku hayeen eedeysanahaas ayaa gacanta lagu soo dhigay bacdama ay soo ashtagoodeen dad sheegtay inuu hor u dhacay eedeysanahaas goobjoogna u ahaayeen dhicii oo iyagu geystay marka eedeysanahaas gacanta lagu soo dhigay isagana baaristiisa socota marka ay ku cadaato ayaan saas oo kale saxaafadda la soo wadaagi doonaa oo ku cadeyn doonaa garsoorka xukunka markay ku midaan kadib maxaa yeelay iyada oo maxkamadda awood u leh ama garsoorka uu isan qofka eedeysana u aqoonsan dambiile lama dhihi karo inuu dambiile yahay sidaas daraaddeed dhammaantood waa eedeysanayaal marka kiisasku ay ku cadaadaan ayay noqon doonaan dambiilayaal oo maxkamaddu ay xukunto halkaas waxaan uga baxaynaa kiisasii burcadda hubaysan ahaa ee gacanta lagu soo dhigay howlgallada ciidanka ay sameeyeen awgiis markanna waxaan rabaa inaan idinla wadaago wiilkii yaraa ee Muscab 3 bishii July 2022 ayaa wiil yar oo saqiir ahaa oo lagu magacaabi jiray Muscab Maxamed Xasan ina hooyo Naciimo Abshir Dilix da'diisana ay ahayd 4 jir ayaa 3 bishii July 2022 abaara 3 ama 9kii galabnimo waxaa si arxan darro ah u dilay adeerkii hooyadii qabay oo isna lagu magacaabi jiray Xasan Kaafi Cabdi Jaamac ina hooyo Maryam Hiiray cilmi 25 jir ah degan degmada Daynil ee gobolka Banaadir marxuumkaas yar oo saqiirka ahaa Muscab oo dilay adeerkii hooyadii qabay ayaa waxa jirkiisa ku yaalay sida aad ka aragteen sawirada la soo galiyay baraha bulshada jirdilo iyo ul loo isticmaalo fiilo oo si saayid jirkiisa ugu taalay marka baarista oo kiiska uu waliba meel gabagaba maraysa ilaa hadda waxaa lagu ogaaday in marxuumkaas yarka saqiirka ah uu u dhintay naqas ku dhagay bacdama jirdil loo geystay ushaas oo ku dhacday iyadana baaristeedu way socotaa wixii ka soo baxa saas oo kale waa idin wadaagi doonaa hadii Ilaahay uu yiraahdo waxaan rabaa inaan fariin gaarsiiyo howlgalkaas burcadda hubaysanaha ee lagu dagaalamayo burcad dadka dhacda wuxuu ku socdaa guud ahaan gobolka Banaadir iyo nawaaxigiisa ujeedaduna waxay tahay in aan kula dagaalamo burcadaas banaysatay dhiigga iyo hantida ummadda Soomaaliyeed maxaa yeelay qofka burcadda ee uu qasday inuu qof muwaadin ah oo mobile ah waxba joogin ka qaato waxay ku tusinaysaa halkaas waxa ka dareemi kartaa haddii qofka muwaadinka uu isku dayo inuu diido in qofka burcadda ah uu dilayo marka waxba ma dhaamaan falalka kale argagixisadu ay dadka dhiigooda ku banaysatay burcadda hubaysan waxaan ula dagaalamaynaa sidaan argagixisada ula dagaalanno maxaa yeelay waxay banaysteen dhiigga iyo maalka muwaadiniinta Soomaaliyeed sida argagixisadu hore u banaysatay marka arrimahaas howlgalkaas waa socdaan shacabkeena sharafta leh waxaan ka codsanaynaa inay howlgalladii ay naga caawin jireen qaybna ka ahaayeen garabsiinta ciidamada ammaanka iyo ciidamada difaaca ay qayb ka noqdaan sidii hore noogu caawin jireen ay noogu caawiyaan isla markaana xogahana la wadaago hore waxaan dhowr jeer u sheegnay in 991 uu yahay lambarka gaaban ee lagala soo xiriiri karo ciidanka booliska Soomaaliyeed fadlan muwaadin qasab maaha inaan adiga lagu dhicin haddii aad aragto wax gudoon geliya oo kuula ekaada inay amniga qalqal ku yihiin ama lid ku yihiin si gaaban ula xiriir ciidanka booliska Soomaaliyeed taleefanka 991 kaas ayaa noo saamaxaya in isla markiiba howlgalka lagu soo qabtay howlgalka ka dhacay degmada Kaaraan oo eedeysanaha lagu raajo lagu soo qabtay waxa lagu guuleystay in la soo qabto wicitaan qofkii muwaadinka ah uu soo basiyay 991 hal ayaa sabab u noqday in eedeysanaha gacanta lagu soo dhigay kiisaskaasna waa socon doonaan ilaa aan ka cirib tirno burcadaas hubaysan
gobolka ka kacday waa socon doonaan shacabka hore nooga caawiyay qaybna ka ah waa uga mahad celinaynaa sidaan hore u sheegnay qof walba موبل كم كان يهي آمنسن إن برعت كلا قبل موبل كيسوق عنه بيجرو موبل هذا يهنتدا عن كقبل إن برعت أصله حنجين دونا أو هو استعمالية كجيران أو داب كده عن كجيران كجيران أو موبلات كجيران كرسون كلا جين دونا مركز محكمة الحكم كسر دو محكمة أود الحكم كله وحدين لو كسر علم دونا برت مركز ولا قصة قبتيسم مواد كي ديوان جنيه أو دعوات ديوان قصي وهنتيز دبل وما سنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال وتاي كاسي wuxuu ahaa afayeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed Sadiq Aadan Doodisho oo ay shirjirey ku qabanayay gudaha xarunta CID-da ee magaalada Muqdisho dhawaana waxaa la soo bandhigi doonaa agabyadii iyo hubkii ay dadka ku dhici jireen kooxaha burcadka ee marka magaalada Muqdisho looga caalwaayay waxa sidoo kale dhawaan la soo bandhigayaa markana eedeysanayaasha qaar ka mid ah وانا قار كميدا eedeysna ciyaashii ugu eedeeyay falalkaasi xatooyada iyo dhaca sidoo kale qabaha kala duwan ee bulshada meeshu markan waxaa saxaafadda loo soo bandhigayaa xubnihii iyagu ku eedeysnaa falalka dhaca ah waxaana saxaafadda sida uu sheegay afayeenka booliska dowladda federaalka ee Soomaaliya شو يسوي لو بدي نكلم شو قرب ساقة ديوان كاو رئيسنا هنا شغلين يجيب مكان لا الله بس أنا هذا يعني لحظة هذه أغلبية كل الدونا ومركا قبوا يكمل يهين مركا برعدن دعيين أما مركا سي كسوقاتين ذاتك كل الدونا شعبك أيها حال كان كم وقنية أبو وصو بندقي يهوبك نوعي كل الدون إذا سنياش قلبت على صوب بندقي رجن أيها كميدا أو كجيرو دلاقي مركا دلويل كا وأديركو أها عادي كدع عادي نقدها عبدا قبتها قراهان دقمة الدين له
sidoo kale afhayeenku waxa uu sheegay in kastoo ay wax ka maqan yihiin gacanta lagu xiriyo isla markaasina ay ka tuumaysa in taleefon ama agabyo kaga dhacayo xogtiisu markuu dhaco kadib loogu celin doono agabyadiisa waa tahay daawadayaasha qiimiga badan waxaa si toos ah ula socotaan TV-ga STN xaruntiisa magaalada Muqdisho raggani waa rag lagu soo eedeeyay dhaca dadka magaalada caasimadda Muqdisho ku nool iyo sidoo kale dilayaal qaar kamid ah dadkii markaa mid kamid ah isagoo dilay wiil uu adeer u ahaa dhacdo ka dhacday gudaha magaalada caasimadda Muqdisho gaar ahaan degmada Daynile